gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gabiley Mujaahid Cali Cabdi Cabdilaahi Cali Case gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada Maxamed Aadan ayaa kormeer indhayn ah ku soo maray degmooyin ka tirsan gobolka Gabiley sida Allay Baday Wajaale iyo magaalada Kalabayd haddaba ardayda galaysa imtixaanada dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee degmada Allay Baday ayay kula hadleen mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee Allay Baday barxadda dugsiga iyagoo hadallo goobaabo iyo duco isugu uga jeediyay halka ayaa waxay yiraahdeen waxa farxad weyn noo ah in halkan isagoo barasab ku-xigeenkii gobolka la jooga maanta halkan uu noogu daahfuro imtixaankii oo maanta halkan noogu bilaabmaya guud ahaan dalka ka bilaabmaya runtii dardaaran iyo wacyigelin waan soo dhamaysanay anshaxii imtixaanka sanadkan nidaamyo cusub ee imtixaanka loo dejiyo loo galayo waa la idin akhriyay maamulayaasha hore idinku akhriyeen wax walba oo la soo dhamaystiray waxweeyaan wala idin sii ducaynaya waxweeyaan dhiirigelin bay noo tahay in barasabku naga soo qayb galo imtixaanku sida horeba la idinku sheegay xeerka uu leeyahay ardaygii ka talaabsada isaga is khasaariyay oo tabciisa khasaariyay saas uu dibadda kaga ahaanaya dhammaan nidaam baa loo dejiyay nidaam hagaya ilaaliyaha hagaya gudoomiyaha goobta hagaya ardayga hagaya mid walba xeer buu leeyahay iyo nidaam aan laga xadgudbaynin arday aad soo barateen ee maanta imtixaankoodii loo jooga arday waliya dadaalkiisa gudoomiyaha waxbarashadu sheegay ayuu bay ku xidhan tahay saal idin sheegeen xaaladda dawlad la adkeeyo qishka iyo wixii la midkii kulli waa xaraan waan idin ducaynaa imtixaankan Ilaahay idin fududeeyo waxa guud ahaan ka bilaabmay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare fasalada afraad iyo dugsiyada dhexe fasalada sideedaad farxad weyn bay noo tahay maanta inaanu ka soo qayb galno degmada Allay Baday ardaydii imtixaanka u fadhiisanaysay oo halkan maanta aanu idinkula kulanno farxad weyn bay noo tahay dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Axmed Qaalibay ayaa ku galaysaa inuu taaganahay haddii sanadihii hore laga soo qaadi jiray ilaa fasalladii hore idinka sanadkan wuxuu ku kooban yahay inta waxaan u malaynayaa dee sanad dhabba intaa soo dhiganaysayna intaana dakada ka haysaan baan filayaa waxaan idinku dardaarayaa inaad raacdaan qawaaniinta iyo shuruucda loo dejiyey imtixaanka waa maqlayseen wasaaradda waxbarashada iyo guddida imtixaanaadka qaranka dadaal badan bay sameeyeen warbaahinta intaasaa laga hadlayey intaasaa la wacyigelinayay shuruudaha imtixaanka loo dhigay waa qeexan yihiin waxaan idinka rajaynaynaa inaad shuruudaha fulin doontaan waalidkii iyo macallimiinta idinku soo tabcayn inaad tacabkoodii fulin doonta baan idinka rajaynayaa imtixaanka wax weyn la iskagama dhigo imtixaanku waa kii hore ee laydinka soo qaadi jiray oo kale marka ugu horraysa warqadda waxaad ku hubsanaysaa magacaaga iyo roona barkaaga hadday su-aasha kuugu horraysaa kuugu adkaata ha isdul taagin oo wakhti badan ha iskaga lumin waad u soo noqon doontaa marka dambe aad fahmi doontaa wakhtigaad ka faa'iidaysan doontaa insha allah guul baan idin rajaynayaa ardayda dugsiga sare sanadkan u fadhida mujaahid axmed yuusuf golhaye Allay Baday iyo mujaahid Sheekh Axmed Qaalib hoose dhexe Allay Baday guul baan idin rajaynayaa sidoo kale waxa iyana ardayda magaalada Wajaale ay ku soo mareen kormeerkan iyagoo halkaasi mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ay kala hadleen ardayda magaalada Tog Wajaale waxaan ku suganahay dugsiga sare Kaamil Ciise oo imtixaankii si habsamiya uga socdo runtii imtixaanku waxa weeyaan waa imtixaankii qaranka ee shahaadiga ahaa si hufnaana oo aad iyo aad u canayo imtixaanku u socdaa dhammaan dugsiyada aan soo marnay ay ka mid yihiin dugsiga sare Mujaahid Axmed Golhaye dugsiga hoose dhexe Sheekh Axmed Qaalib dugsiga dhexe Xasan Cawke dhammaan dugsiyadaasi runtii intii aan maraynay imtixaanku si guul leh oo fanaana oo canayo uga socdaa waxaan rajaynaynaa imtixaanku sidaa fiican uu ku bilaabmay inuu ku gabagaboobi doono halkan aan joognaa dugsiga sare Kaamil Ciise imtixaankii shahaadiga ahaa ee socda si fiican buu u socdaa waxaan u rajaynaynaa guud ahaanna imtixaanka shahaadiga ee Soomaaliland dhammaanba guul baan u rajaynaynaa halkan maanta aan ku sugannahay waa dugsiga sare ee Kaamil Ciise degmada Wajaale
guud ahaan gobolka Gabiley si habsami buu uga bilaabmay imtixaankaasi inta aanu maraynay wax dhibaato ah runtii maanaan la kulmin arday habsaamay lama kulmin qoliyaha ku hawlan imtixaanaduna waxay noo sheegeen in imtixaanku si habsami u socdo sidaan anagu indhahayaga ku arkaynay guul baan u rajaynayaa guud ahaan ardayda jamhuuriyadda Soomaaliland imtixaankan u fadhida guul baan u rajaynayaa gaar ahaan ardayda gobolka Gabiley ilaahaydankii waxaan rajaynayaa inay kaalmaha ugu fiican ka geli doonaan imtixaanka sanadka ugu dambeyn waxay kormeer ku soo mareen Kalabayd Secondary School oo ay imtixaanka ku jiraan ardayda magaaladaasi waa Cabdisalaam Maxamed Bade Bulsha TV Allah baday